waxaa magaalada Helsinki ee caasimadda waddanka Finland lagu qabtay xafladda si heer sare ah loo soo gaasimay isla markaasna lagu weyneenayay maalinta 26 Juun ee ahayd maalintii ay qaateen xornimada waqooyiga dalka Soomaaliya iyadoo ay soo agaasimeen guddiga qaranka Soomaalida Finland waxaana halkaasi ka qayb galay aqoon-yahano culimo diin waxgarad dhaqaatiir iyo saraakiil ka tirsanaa ciidankii booliska Soomaaliya waxaana ka mid ahaa hadaladoodii anigu anoo ku hadlaya magaca isimada qurba joogta Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynaynaa oo aan taageersanahay 26 Juun oo ah maalintii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taago dhulka Soomaaliya maalintaas waa maalin aad Soomaaliya dhexe ugu qiimo badan waa maalin mudan in maartay si fiican loo taageero oo loo xoojiyo oo xafladeeda oo maartay xusuusta yararka dadka oo weyn la baro marka anaguna waa taageersanahay waxaan rajaynayaa in dawladda dadka ka soo horjeedo waa dibiiliyaal dawladda waa la doortay sharciga dhigaayo walow Cabdul Xabshe warsool ku dhahay adoon haddaan ma ku waafaqdiin xabasha ku waafaqdiin ilaa waqtigiisa ma aysan ku caasili kartiin ninka waxa lagu caasin karaa kaliya madaxweynaha markuu diinka Ilaahay ka baxo ku caasin karta maalintii hadduu 100 dilo oo muslim yahay ma ku caasin kartid rasuulku niga kullukum daakhilun wa rasuulku illa man aba kulligii jannad galiiseen illa man ma iska diida maayo qiliya wal weydi ninka ani wacaasi jannad gali maayo qowlka rasuulka oo marada doorateen ilaa xilligeeda ka dhameysad madaxa rasuulku dhaay alla ay caasiyeen kuma ka soo horjeedo alla kuma ka soo horjeedo miin waa u duceynayna khayr badan Allah siiyo dhaha magacooda anoo ku hadlaayay hooyooyinka Soomaaliyeed inaan u mahad celiyo una hambaliyeeyo Soomaalida oo dhan calankii la qaatay 26 Juun calankaas iyo xornimadaas oo qiimo iyo qaayo weyn ugu fadhiso ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa xafladda maanta ana inay mid weyn ahayd 1 Julayna ay mid weyn oo kala noqon doonto maadaama dawladdeeni ay sanadkan ay tahay dawlad maarkino la aqoonsan yahay dadka sharafta leh iyo mudnaanta oo shirkan ka soo qayb galay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinay ka soo qayb galka shirkan ay ka soo qayb galeen shirkan oo ku saabsan xaflad lagu xusay sanad guuradii 53aad ee ka soo wareegtay maalintii calan Soomaaliyeed oo xur ah laga taagay gobol ka mid ah gobolladii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato 26 Juun ha noolaato 1 Julayna berigeeda maalinteeda iyo midnimada dhinto ha noolaato salaanka bacdi wixii la dhihi lahaa raggii iga horeeyaa yiri muhiimaddu in meesha loo yimid waxa weeye taageerada 26 Juun ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leenahay hambaliyo wuxuu yiri niman yahow fatuuradaha wata waad fasaqanteene fudayd laguma helin dawladdaad faraxumayseene anigu kii fashiliyanaha fooridii karale faa'iido ii gooniya iyo faan ma doonayna faca iga dambeeyaan la Faris iyo noqone waxaan jeclahay marka horeeto inaan hambaliyo u diro anigoo ah qabanqaabiyaashii xafladan oo anigoo ku hadlaya magaca guddiga qaranka Soomaaliyeed ee Finland inagoo adduunka eedkiisa joogna ayaanu maanta waxaanu idin la qaybsanaynaa maalintan qiimaha weyn ee ummadda Soomaaliyeed qiimaha weyn ugu fadhiya oo ah 26 Juun oo ay tahay maalinkii ugu horeysay la tuuray heeryada gumaysiga ummadda Soomaaliyeed ku habsaday xilliga waxaana ugu xigta 1 Luulyo oo iyaduna sidaas si ka ballaaran aanu u xusi doonaa haddii Allah wada leh ogolaado waxaan leeyahay midnimo cadaalad isku tashi sinaan horumar Soomaaliya Soomaaliba leh ummadda Soomaaliyeed meel joogtana gacmaha is qabsadaan hal la isu samro hal la is aamiro tafaraaruqa waxba kuma noqonayno midnimada deeqda xafladan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen dadweyne Soomaaliyeed oo aad u fara badan ayaa ahayd mid aad u wanaagsan iyadoo ay soo qaban qaabiyeen guddiga qaranka Soomaalida Finland mana aha markii ugu horeysay sidaan oo kale looga xuso maalinta xornimada Soomaaliya Maxamed Bashiir Maxamed telefishinka Somali Channel Helsinki Finland